wasiirka kheyraadka biyaha Somaliland gudoomiyaha banka dhexe maamulka gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta wakaaladda biyaha ee Burco ayaa waxay maanta xadhiga ka jareen xafiisyo iyo gaadiid lagu soo kordhiyay wakaaladda biyaha ee Burco ceelbiyood laga hirgeliyay magaalada Burco iyo sidoo kale solar lagu rakibay 4 ceelbiyood oo kamid ah 17 ceel ee waraabiya magaalada Burco mashaariicdan ayaa waxa maalgeliyay banka dhexe ee Somaliland wakaaladda biyaha Burco ayaa tan iyo intii ay maalgelinta ka heshay banka dhexe ee Somaliland waxay ku tallaabsatay horumar weyn iyadoo qaaday horumar dhanka tayeynta iyo sugidda shaqada ay u hayso gobolka Togdheer injineerka rakibay solarta iyo maareeyaha wakaaladda biyaha Burco ayaa ka warramay sida ay u saaciday solarto waraabinta magaalada Burco muddo 6 sano 7 sano oo qodnaa 7 kilomitir 6 kilomitir barbu magaalada u jira aalkan markii hore wuxuu ahaa aal mishiin ku shaqeeya mishiin baa u daraa 4 operator baa jooga 4 operator markaa waxay isku kala bedeli jireen 8 saac iyo operator laba geliyay iyagoo hawl badan inaga gaadhay ilaalinta mishiinada saliidda iyo filtarada iyo ceelka magaalada ka durugsan ceelasha magaalada ka durugsan muddo imika 2 bilood ayuu solar tani saaraa biyuhu markii hore soo saari jiray ceelku wuxuu ahaa markuu mishiinka ahaa 28 mitr cube per hour saacad soo saari jiray imika wuxuu sidaa markaan solar ka dhignay 32 mitr cube per hour buu sidaa ceelkan imika halkan waxaynu joognaa ceelka 11aad bamka ku jira waa 22 kilowatt weey wuxuu saacadii soo saaraa 30 mitr cubic per hour buu soo saaraa 30 mitr cubic per hour that means in ka badan 30 waa 150 foos ayuu saacadii soo saaraya solar kan aynu aragnaa wuxuu ka kooban yahay 90 xabadood 90 ka xabadiiba waa 380 watt weey efficiency-geeduna waa 20% solarka uu ka awood badan yahay ka watt badan yahay ka efficiency badan yahay marka kilowatt waxay ku noqonaysaa 4,200 oo watt ayaa markaa bamka 22 kilowatt ah biyaha ka soo saaraya waad aragtaan waxa farsamadu iyada warranta sida ay u toosan tahay iyo sida loo nadaamiyay really waxaynu oran karnaa waa international standard dhanka kalena wasiirka biyaha iyo barasaabka gobolka Togdheer waxay xadhiga ka jareen ceelbiyoodka koobaad taasi oo inta uu dumay ay wakaaladdu dib u qoday ma sha Allah ceelkan hore wuxuu qodnaa 4 sano waxa la qoday 1977 ilaa bariga uu shaqeynayay unfortunately maalin dhaweyd buu ayuu kala garoobay ceelkii kan baa la qoday alxamdulillah rabbil caalamiin ceelka dhererkiisu waxa weeye 191.65 cm drop downkiisu ma badna waa 2 mitr ayuu hoos u dhacaya marka habeenimo maalin bam gareeyo marka mahad ilaahay weeyaan oo aanu fulinay wasiir maxamed amarka uu bixiyay dawladda markaas ceelkii waa noqonay 4 cishaan ceelka ku dhameynay wuxuu qodan yahay 196 mitr 190 mitr buu qodan yahay biyuhuna waxay soo joogeen markii aan qodanay 51 mitr ay soo gaadheen burooyin badan baan ceel ka qodnay ceel degdeg u soo gaadhay halka biyuhu 50 mitr joogaan oo 200 mitr in ku dhow qodan weli maanu arag macaankiisana aad iyo aad buu macaan yahay bariga magaalada biyo ma heli jirin habeenkii shacabku ma cabi jirin laakiin muddo dheer dadaal badan aanu sameynay oo kaaga badan aanu sameynay badan oo leeynay ayaa waxaan ku dadaalay inay maalintii biyo hesho shacabku maalintii dawladda ceelkani dumay wax badan baa wiiqmay oo shacab kamid ah alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay ugu guuleeyay taladii wanaagsaneed soo bixisay amarkii inaan ceel ku dhifano wasaaradda horumarinta biyuhu geed kasta way joogtaa dadkii la joogtaa sababtoo ah halkii lagu haraadaba biyo meel nooraya hawaanan iskeyna riidad dayactirana way keensatay laba imika noo jooga iyo mid hore oo yar daalay 4 raw noo soo socdaan waxaan ku tala jiraa gobol wal oo kamida gobolada jamhuuriyadda Somaliland horta balinta kale ay noo joogtay 6 gobol ee hore waaweynaa la yaqaanay inaanu mid walba geeyno riig dayactira
intaasi kadib waxay mas'uuliintani xadhiga ka jareen dhismo xafiisya oo lagu soo kordhiyay wakaaladda biyaha ee Burco iyo sidoo kale gaadiid cusub oo wakaaladdu soo iibsatay. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayda oo halkaasi ka hadlay ayaa mas'uuliinta wakaaladda ku amaanay dadaalka ay ugu jiraan horumarinta wakaaladda biyaha ee Burco. waxaan ka marqaati furaya anigoo gudoomiyaha gobolka in lacagtii qaranka ee la amaanay wakaaladda biyaha ay sidii loogu talagalay wax ugu qabteen nimanka dhalinyarada ay ka madaxday. waxaan qirayaa in magaalada Burco imika 70% ama 80 ay biyihii wakaaladda cabiyaan. Gudoomiyaha Banka Dhexe ee Somaliland Cali Ibrahim Jaamac Baqdaadi oo isna halkaasi ka hadlay ayaa wakaaladda biyaha Burco ku amaanay sida ay u soo celiso lacagta lagu maalgeliyo iyo muujinta isbeddelka weyn ee ay ku sameeyeen wakaaladda biyaha Burco muddadii ay joogeen. Banka Dhexe maalgelinta inuu samaynayo maaha lacagaan soo damaanay manaha muxuu ahaa horena dee dhama maalgelin jirin. waxa weeyaan lacagtii ummadda ee siyaaba qaarkood u bixi jirtay oo aan bixin la keediyey looguna talagalay madaxweynuhu ku amray in mashaariicda horumarinta lagu maalgeliyo. ma aha lacag cusub aanu keennay ee waa tii waddanka taariikhda haddana u soo xirootay oo banka dib u soo noqotay. si khaldana looma isticmaalin way taallaa wixii mashruucaanu aragno ee aanu isleenahay waxba ummadda u qabanaya ayuun baanu ku maalgelinaa. dadka baayaca mushtariga iyo private sectorkana ma maalgelino laakiinse hay'adaha xukuumadda iyo wasaaradaha ayaanu maalgelinaa mashaariicda loogu talagalay horumarka dalka. wakaaladda Burco ee biyuhu kuwa kale wax weyn bay dheertay. number 1 lacagta way soo celiyeen markiiba oo kuma daahdo. number 2 alaabtayna tusaan noo ogolaatay lacagteedii baxday lacagtii halka ay gashay halka iyo intii kale aan soo maray waa soolarradii waa mashiinada waa baabuurta waa qalada beerka kale xagga dambe yaalay marka doona weey runtii aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa maamulka maareeyaha ku-xigeenka iyo shaqaalaweynaha wakaaladda biyaha ee Burco muxuu ahaa isuduwaha biyaha gobolka qarasaabka iyo maamulka degmada ee Burco. intaasi kadib waxay mas'uuliinta wakaaladda biyaha Burco iyo maamulka gobolka Togdheer shahaado sharaf ku maamuuseen gudoomiyaha Banka Dhexe ee Somaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha laanta Burco ee Banka Dhexe. Shaafici Maxamed Ibrahim, telefishinka caalamiga ee Somali Cable, magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.